dadweyne aad u fara badan ayaa iskugu soo baxay salaadii ciida ee xaafadda Islii isla markaasina waxaa kala soo qayb galay dad magac iyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda oo ugu horeeyo xildhibaanka xaafadda laga soo doortay xildhibaan Yuusuf Xasan isla markaasina dadweynahani ayaa aad u fara badnaa iyo ganacsato iyo noocyada kala duwan ee bulshada iyo dad magac ku lahaa xataa annaga ayaa kamid ahayn oo casuumaad ka helnay isla markaas xildhibaanka oo isla markaasina kala qayb galnay salaadii ciida iyo dadweynihii aadka u wada quruxda badnaa bilicda ahaa isla markaasina ismarxabeynayay salaanta isla dhacayay isla markaasina dhamaantoodii soonkoodii iyo faralkoodii gutay isla markaasina si ay farxadda maalintaas u muujiyaan u soo bandhigay bulshada dhexdeeda balse bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa halkaasi waxa ay ka yiraahdeen hadallo aad muhiim u ah oo ugu horeeyo xildhibaan Yuusuf Xasan oo u sheegay ummadda Soomaaliyeed inay jirto doorashadii ugu adkeed sanadadii la soo dhaafay sanadkani asagoo sheegay qofka Soomaaliga inay tahay codkiisa inuu dhiibto oo siisto qofka saxda ah isla markaasina ay aad muhiim u tahay isagoo xaafadda si kala qaaday oo u kala qaybiyay koonfur iyo waqooyi iyo xaafadda California saddexda xaafadood oo laga soo doorto saddex gudoomiye degmo oo Soomaali ah taas oo sheegay inay ku mintidaan ay difaacdaan kuraastooda isagoona sheegay inuu yahay xildhibaanka kaliya oo isla markaas cadaalad iyo daryeel xaafadda u muujiyay magac weyn ku lahaa bulshadana halkaas kala hadlay una sheegay in ay bulshadiisa uu wax badan u soo qabtay isla markaasina uu mudan yahay markaana uu taagan yahay markaleeto in codkii la siiyo oo la sii garab istaago si markaas matalaad sax u helaan ummadana hadii uu qofka uu codkiisa meesha saxda ku bixin inay tahay dhibaato oo asaga isku geystay oo cidna ku eersan karin balse xildhibaanka ayaa warbaahinta la hadlay shacabkana intuu hor istaagay hadal u jeediyay oo isla mar ahaantaasi culimadii meesha joogtay ee ku soo dhaweeyeen mikrofoonka xildhibaanka ayaana isla mar ahaantaasina bulshada ugu baaqay in mar walba ay ka shaqeeyaan dhinaca amniga iyo xasiloonida isla markaasina taxadar muujiyaan maadaama la galayo bisha 8aad ee sanadkani doorashada isla markaasina ay wax badan isbedeli doonaan xildhibaanka ayaa إلى كل بعدين كتاب دماغ بيشبه كيسان الرباع وحنكتون إلى هيك بريا كنصوكي يساري عن سوق عليه بيشبه كيسان إنه إلى هيك نجار ودمست هذا وحنا إنه نركي نهاية وقتي لنا نروح دورش الله كجسمته وحنكبر سنيا سنين له ونكسر إلى الوقت كان على وين إنسان سرنا دورشة لبنان حاجة سياسة دولة كمان تسوق وإسبدل بدل ما نحيا مركز إسبدل كاس أنا وين كم قناة هذا إذا ما بسلكا إذا وين كم قناة هذا الصومالي لنا كرسي كان مسلين عندنا الصومالي وكذا وكذا وقتها لنا دافعين أنا هو تاجنا مركز تاجنا وحنا كحصانيا إلى الكرسي استفادان وآت اللباك عدالة ورمرك سناشرة كوني شت سنين دافتي إلى تدرج بيسوع الإنسان أيام الكبرية وحكلتهم من الكبرية MCA ياشا إسلي من الصومالي وكسوغلا إسلي نوف من الصومالي وكسوغلا كاليفورنيا من الصومالي وكسوغلا إلى الدم هذا مبسطان وراستاس إلى النجار من ودم الصومالي يعملون marka awoodda siyaasadda waddanka haddaan ka qayb qaadano oo ka coday waxba kuma lihi dadku waxay yidhaahdaan ninka aan codaynaynin amase aan ninka fiican u codaynaynin wuxuu ogol yahay in si xun loo xukumo marka waxaan anigu ogahay inaad dad miir qaba oo fiican aad tihiin oo aad oranaysaan dad wax u qabta xaafadda dad aad ku aamini kartaan gacanta xaafadda marka waxaan mar kale idin rajeynayaa ciid wanaagsan ilaahay nabadgelyina idinku geeyo salaad naga wada gaarsiiya dhalinyarada noocaas oo kale ka baahanayo had iyo jeer ka hawsado hawlkarka hambalya
السلام عليكم waxaan doonayaa in aan dhamaanba muslimiinta meel kasta oo joogan adduunka iyo khaasatan dadka Soomaalida inaan salaan diiran oo Eid Mubarak u wada diro waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta oo joogtaan Eid Mubarak Eid wanaagsan Eid farxad leh bashbash iyo barwaaqo Eid nabadda Eid wanaagsan oo horumar iyo kalgacayl iyo walaaltinimo leh inaad meel kastaba ku yidaan khaasatan dadka reer Kamukunji reer Islina waxaan leeyahay waa farxad bay noo tahay maanta markii ugu horeysay intaas oo sana inaan dib haddana u soo baxno oo si walaaltinimo oo wanaagsan oo muslimnimo aan si wada jira u tukanno farxad weyn bay noo tahay runtii waxaan ilaahay ka baryayaa soonkii iyo salaadii iyo sadaqadan baxsanay inuu naga aqbalo dambigeennana inuu cafiyo waxaan rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa in ciidan ciideeda kale inuu anagoo nabada nagu gaarsiiyo waxa kale toon ilaahay ka rajaynayaa muslimiinta tabaalaysan ee meelaha kala duwan ee adduunka jira oo dagaalka iyo dhibaatada iyo abaartu ay ka jirto ilaahay inuu dhibkaasi ka qaado oo nabad iyo caafimaad ay ku noolaadaan ugu dambeystina waxaan leeyahay reer Kamukunji waad ogtihiin doorashaan ku jirnaa waa sanad doorasho madaxweyne cusub baan dooranaynaa gabnar cusub baan dooranaynaa xaafadan Kamukunjina anigu xildhibaan ahaan baan u taaganahay marka waxaan idinka codsanayaa xildhibaanka la soo tijaabiyey ee aad taqaaniin hawlkarnimadiisa oo aad taqaaniin cadaaladnimadiisa oo aad taqaaniin horumarka uu xaafadda ka keenay midnimada dadkeena iyo wadajirka dadkeena sidoo uga shaqeeyay inaad mar kale kursigaasi aad daafacdaan oo ninkaasi hawsha qabtay aad ku soo celisaan oo codkiina isiisaan baan idinka barayaa kuraasta kale TMC-yaashana Soomaalida 3 kursi bay ku leedahay deegaankan Kamukunji waxaan idinka codsanayaa 3da kursi inaanayna dhaafin oo aad daafacdaan marka aad awood siyaasadeed aad wadanka ku leedahay ayaad wax kale fursado kale ka leedahay ka samaysan karta ganacsigaaga wuxuu hagaagayaa marka aad hoggaan siyaasad leedahay horumarkaada bulshada wuxuu hormaraya waqtigaas siyaasaddu ayaa maamusha wax kasta oo wadanka ka socda marka ka soo qayb gala si miir lehna uga soo qayb galo oo dad qiimo leh oo wax u qaban kara deegaanka gobolka iyo dalka soo doorta sanadkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.